madaxweynaha ka soo horjeeda ama dawladda ka soo horjeeda taas ma fahmi karo waayo isagu wuxuu arkaa black and white waxa la yidhahdo wax kale ma arko waa faras geedaha ka xiran ama dameer geesaha ka xiran wax kale ma arko kow 6 bilood ka hor ayaan assessment sameeyay aniga assessment waxaan u sameeyay si oo sophisticated ah maahan iska hadalla madaxweynaha wadamada uu tagay kuwii ugu muhiimsanaa hadda aniga aan soo qaatay waxay noqdeen 3 wadan kuwa oo deeqaha bixiye iyo Mareykan iyo Europe iyo waxa iska daa 3 wadan ee hadda ugu muhiimsan isaga uu tagay for different reason waxay ahaayeen wadamadan East Africa ama Tanzania hata ama Kenya ha ahaato Eritrea ha ahaato iyo Masar su'aalaha la isweydiinaya waxay tahay maxaa faa'iido aan keenay Kenya waxaan laga dhaadhiciyay oo shalay social media la faafinayay ciyaal TikTok oo kale hadda xalay waxaan dhacay TikTok lama sheekaysan karaan dad waxaan rabaa oo debate ila gala iyo challenge gareeya madaxweynaha wax sir oo laga duubay ama sir la faafiyay ma jirto madaxweynaha wuxuu u mahad celiyay dawladda Eritrea madaxweynaha markuu opposition-ka ahaa xaq wuxuu u lahaa xiligaas in uu yiraahdo dhalinyaradan askarta ah ee 5 ama 7 kuna miyaa la iibsaday miyay dhinteen dagaal miyay galeen cirkamay u duwan xaq u leeyahay why waa loo sheegi waayo adiga laftigaaga haddii aan meel aad tagto aad tiraahdid war opposition-kiina waxaan rabaa inaad noo sheegtaan dhalinyarta ku dambeeyay ma ogi laga aamuso waxa taliyihii oo ciidanka u yiraahdo baarlamaanka under the oath u yiraahdo wax ma bijiraan u yiraahdo markaas xaq u leeyahay marka dadkan waxay u maleeyeen meeshan TikTok iyo dhoocilihii isku burbursan jiro kale u marayeen shalay saan u yiri maan soo yiri maanta international diplomacy wuxuu u shaqeeyaa wadankaas oo 5 kun qoodiyay in qofka dhahdid waa mahadsan tahay dhalinyaradeenna noo soo celi taas waa very remarkable achievement markii maalintii ugu horeysay waxaan aragnay annaga waxay ahayd after years aan aragnay dhalinyaro Soomaaliyeed oo meel ay tini cirb ay dhigaan la waayaan aragnay taas big things ahayd dada waxay ku doodeen madaxweynaha muxuu Masar u tagay historically Masar iyo Soomaaliya taariikh weyn ka dhaxaysa teeda kale international diplomacy u shaqeey waxay tahay in wadan adiga aadan marnaba u heebis waxay yiraahdeen Ethiopia xanaaqayso haddii xanaaqdo yeelkadeeda markii uu tagay Djibouti kadibna uu tagay Eritrea Djibouti maxay xanaaqayso walaal aan nahay ileen Eritrea dhul Soomaaliya haysatay and this is the same people oo intay meel soo fadhiistaan la doonayo in laga dhageysto inuu hero u yahay Afrika ninka la yiraahdo ninka there's nothing hero about this guy waa mise no election waa ko Masar tagisteeda wax weyn ahayd ayaan dhaxdaas dhibaatada markay dhacday DC19 airport ka deganahay ay soo degeen habeenkii oo qaadayeen adis faa'iido laga helay madaxweynaha uu tagay tan uga sii weyn uu tagay waxa ay tahay Sharma Sheikh uu ku tagay waayo Soomaaliya wadamada ay saameynta ku leedahay global warming food security ay ku leedahay waayo waa wadanka kaliya 6 bilood dhexdooda biyo la'aan loogu dhinta laakiin adiga yaa ka dhaadhicin kartaa yaa la hadli kartaa dibad garan kartaa qof intuu soo istaago dhahayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo aaba Soomaaliyeed ee blood cancer ku dhacday ma qofka sidii dibad garan kartaa qof inkaartamaayo oo caaytamaayo inta dhahayo waxa ay soo galeen Cabdinaasir waxaan maqalnay gabdhaha u jawaabtay maxaa u jawaabayna gabdhaha I believe equal opportunity I believe gabdhaha in oo ay ragga la siman yihiin marka dibadda imaanayso gabadhii soo gasho si eedaba u hadasha si wax oo fiican ku weydiisa laakiin waa caaytamaya waa inkaartamaya waa intaan dhahaya wax feegan sameynaya waa laga aamusaya no taas waa another debate way dhaqaale ahaan marka wadanka loo fiiriyo waxa soo xaroobay waxay ku tusaysaa daradow inaan maaragtay baraha bulshada aan soo wada dhignay 80 milyan oo wasaarad kaliya oo ay ka timaado World Bank ay ka timaado wasaarad kaliya oo wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada iyo kuwii gobolada isku dagaaleen of course maanta jid xiran haddaan aragno waan soo dhigaynaa viisaha maxaa la yidhaahdaa oo dadka dhibaatada ka haysta Kenya waan soo dhigaynaa it means dawladdaada waa inaad saxdaa ma ahan dawladda in loo buraanburo marka Xasan Sheikh wuxuu sameeyay wax luqadda Ingiriiska lagu yiraahdo remarkable achievement no inaan aniga aan taageerayo taas oo kalama dawladda waxa la fiiriyaa bal hal su'aal isweydiiya dadkan professorada isku sheega for the record aniga professorship 12 sano ayaan jaamacad dhigayay waa haysta laakiin waa diiday inaan title aan isticmaalo sababtoo ah title kuwaas ila isticmaalo haddii aan isticmaalo ma doonay Cabdinaasir Ismaaciil bad ugu yeeraysa engineer ay dhihin doctor ay dhihin professor ay dhihin dadkaas waxay ku leeyihiin dagaalka lagula jiro argagixisada waa wrong macawisley waa sidaan ku leeyihiin su'aal mis weydii last 5 years maxaa la sameeyay very simple question last 5 years dawladdan ka horeysay maxay samaysay nothing none wax la sameeyay haba yaraatee ma jirto marka qofkaas oo kale markuu aan lecture ii dhigayo oo dhahayo sidan wadanka saan u ah intuu ka dhacaysaan ko dad ba waxay naga dhaadhicin ay yiraahdeen ciidankii sikoma madaxweynaha uu soo arkay oo dadkay ku farxeen dad waalidiintooda ayuu madaxweynaha qaabilay 15 ah inaan qaraabanahay ku jiray oo reer Baydhabo ku jiray xalay waxay yiraahdeen 15 family oo dhamaantooda lafta hoose maana ba kala aqaan madaxweynaha inuu abgalay bisan aqaan wuxuu ka yahay Allah yaclam inaan aqoon lafta hoose kamid ay hayaan dhahay
markaasaan nin aftigaya ku jira ninkii aftigaya oo raxaweenka goormo waxaan dhahay noqdeen dhahay bahalkii abgaar u noqdaan dhahay maba ogeyn kow tii ay lahaayeen waagii hadda isla reerkii oo lahaa waa reerkii hoosoo lacag la siiyey mar labaad waa andocdeen waxay yidhahdeen madaxweyne anaga tan nama qabato waa tii hadda madaxweynaha uu baxay aawi dad qarabay bahaayeen taas waa mid economic groupkii oo la keensaday waxay ahaayeen 3 odayaal oo mid oo Germany joogo mid Mareykan joogo mid Canada joogo European kala joogo iyo dhowr cadaan ah sanadkii hal mar imaan jireen wadankan dadka meeshaan la keenay waxay noqdeen dhalinyaro todobadooda 5 ka mid ah oo gudoomiyada ku jiro ninkan Xoosow la yiraahdo in ay yihiin PhD holders economics ah marka dadkii laga qaylay teeda kale Soomaalida the point double ee eegan waxay noqonaysaa qabiil ninka Xoosow waa abtigay oo kala hadana wuxuu dhashay wasiir Xoosow la dhashay nin oo Canada jaamacad economics kaga soo baxay waxa la yiri sub clan oo abgaal waay markaas isaga aan jamcihiisa aragnay maanta abti goorma abgaal noqotana leysana baheedan dhahay marka dadka aniga aan ka sheekeynayo oo aan la diil gareeyay rabo inta ma soo gali karaan ma dhigi karaan wala ila dibad galay aan ku dhageysay dawladda economic success ay ku samaysay GDP wadanku aragnaa meel uu had iska bedelay 6 bilood madaxweynaha wuxuu qabtay arrimaha dibadda haday tahay dhaqaalaha haday tahay inta laga eego in wadankii uu galay stage oo ma aragtay securities la balaarinayo what the same people or so dhigaya head count of how many Somali people are dead dadkan la deal gareynayna fiiriya waxa waagi farmaajo joog intaas dhimatay war who cares qofka joogay qofka dhintay Soomaali waayo xabadda iyo qaraxa qabiil ma yaqaano kuma qorna dadkaas logicaas ka maqan sababtoo ah they are still pissed off waxay ka xanaaqsan yihiin systemkii wadanka muxuu isu bedelay kow arintan hadda laga hadlayo maanta saaxiibkay raba inuu noo macneeyo laakiin aniga frustration ku dhacay yar cali maanta wuxuu nooga sheekeynaa international diplomacy u shaqeyso wadamadan oo kuwa oo permanentiga ah ee ku jira iyo kuwa temporary-ga ah markay vote gareeyeen qaab oo diplomacy loo vote gareeyo hadii majority laga badiyo waraaqda aan soo dhigo aragteen oo ay soo direen qoladan Mareykanka majority laga badiyo waxa waay ma ahan Kenya waa cadawga iyo saaxiibkayga iyo Kenya opportunity mar walba marka sida loo vote gareeyo haday noqoto embargo waxay noqonaysaa in Soomaali hadana hal sano kale assessment loo sameeyo laakiin progress kaliya ay sameyn karaan waxay tahay Soomaali inay ku dhiirto mar walba ay ku laabato marka hadii la sameeyo ma failure oo Xasan Sheikh no haday saas tahay de shantii sano la soo dhaafan waxay ahayd every year waa la review gareey jiray farmaajo ahayd shantii ka sii horeysan Xasan Sheikh shantii ka sii horeysan waxay jabsaday hadii markaas la gaaro laakiin logicaas wax kama dhicin kartid dadkan dibadda ku nool majority-gooda ma fahansana dawladnimada in adeerkooda ama mid isu qabiil yihiin mid ay taageeraan haday ka waayeen waxay u maleeyaan adduunka inay isla balbashay aniga personally aqligooda iyo nidaamka ay aaminsan yihiin ma raaco sababtoo ah nin aniga oo dibadda la sameynay madaxweyne farmaajo waxa kama sheegi karo sheekh shariif waxa kama sheegi karo ma cayn karo daliil siyaasadooda daliil xasan sheekh daliil siyaasadiisa waxa tirada xasan sheekh siyaasadiisa sansan waa xun tahay laakiin markii aan aragno wiil yar oo shaqo intii oo shaqeynayay dawladdan markay imaa 3 bilood ka bacdi shaqada laga buriyay all of a sudden wuxuu social media noogu soo qoray oo waxay afduubtay niman abgaal ah oo maxaa la yiraahdaa xasan sheekh ilmadeeriyiin all of a sudden qofka adigu afduubayo intuu ku imaado ku leeyahay waxaan afar kala tirsan xasan sheekh saas isku nahay marka expose aan ka dhignan waxay shir la yimaadeen oo yiraahdeen oh kaarka waa still valid ku dhahan 2022 December oo dhaca of course kaara waa dhici kara anytime waa dhici kara laakiin ku galitaanka shaqada qof adiga 3 bilood ka hor meel shaqo laga eray maxaa ka doonaysaa taas waa mid waay marka waxa la rabaa dawladdan dadkan ay rabaan inay dawladda failure noqoto dawladdan 6 months ugu dambeysay inaan ku dheeraado ma rabo remarkable achievement oo documented ah ayaa aniga waxaan soo wadaa kowda Janaayo marka la gaaro waxaan leeyahay intaan been iyo madaxweynaha intaas safar u tagay lacagta wadanka soo galiyay intuu ku baxay madaxweynaha de California Gulf uma aadin Maldives inuu dabaasho ma aadin markuu baxayo idaazamaata inuu baxo inuu jooga hadiiba Soomaali waxdan ugu jirto haduu berri uu tago Mareykan oo Soomaali ay ka soo helayso lacagihii loo ballan qaaday oo ilaa hadda 1.1 billion US dollars oo aid iyo investment kala duwan ah wadankaydan u tahay shaqa abuurta ya dhalanaysa dhalinyaradan badaha ku dhimanaya iyo Turki meelahan ku dhimanaya way ka badbaadayaan magaalada Muqdisho hadda last 3 months aan joogaanay magaalada Muqdisho dhib waa ka jira dad qaarkood iska dhibaataysan yihiin laakiin dadkaas waxay rabaan magaalada Muqdisho inuu daad soo galo lagu kala baxo lagu qaxa marka ma ahan isweydii waa Soomaali nacaybka intaan gaarsan intuu ka yimid nacaybka wax kale ma ahan systemkeeni ayaa ka fiicnaa waxaan la abuurtay oo la leeyahay heblow malaayiin jeceelow maxay ahayd ereyga xabiib malaayiin iyo milyan inta saani waxaan waa nonsense wadankan cult personality mar wadankan Kuwait ma ahan Imaaraadka ma ahan wadankan Kim Jong Un wadankiisa ma ahan wadankan Xasan Sheekh 4 sano markay u dhamaato hadduu soo laabto madaxweynaheena waa hadduu soo laabanin ma joogay boqortooyo ma ahan
reer iskale ma jirto hadduu farmaajo soo laabto waa la taageerayaa madaxweynaha laakiin dadkaas male xaniyahaas iyo dumarnimadaas iyo ragnimadaas male waxay leeyihiin keliya may qof adiga kule xasan sheekh madaxweynihii oo aabba soomaaliyeed ah blood cancer uu qabaa adiga qofkaas ma la dil garan kartaa markaasuu leeyahay gabdhaha yaa laga daba hadlin gabadha waa educated gabadh intay ka dhacday nonsense gabadhii edeb leh edeb kusoo gasha hadasha debate gasha challenge kula samaysa waa la samaynayaa laakiin sheekadana neecda oo Soomaali dhaqanka Soomaalida gabdhaha in la hadla gabdhaha la hadli jiray waa gabdhaha adaabta lahaa reerkooda ka adkaa shaqaysan jiray wax baran jiray debate soo gali jiray we okay with that laakiin ina meel soo gashid oo madaxweynaha aflagaadis abeen ay ka sheegtid oo abuurtid ay wala challenge gareyn lagu macaynayo hada soo caysantidna jawaab oo ka weyn lagu siinaa marka waxaan ku soo gabagabeynayaa dhalinyarada dhageysanay ama kuwii dhageysan doona hadda waa la duubaya xagga laga dhageysanaya wadanka waa la joogaa waa lagu nool yahay waa iska dhibaataysan yahay laakiin there's no place like home madaxweynahaaga iyo dawladdaada yaa lagaa dhaadhicinin adduuna inta ka dhacday waxaan u jeeday reerkan ceerta la yidhaahdo inta iyagaa inta saar oo waxaan ku weydiiyey aan su-aal isweydiiyey horta kor isweydiin jiray oo abgal hadday shaqaylaan Soomaali maahan miya ceer hadday shaqaylaan Soomaali maahan miya dadkan waxay arkaan everything about qabiil and black and white anigu weligay qabiil qofna kuma taageerin isu qabiilna ma lihin xasan sheekh nimankii hore aan taageeri jiray ninka la yidhahdo maxamed xuseen rabbi isu qabiil ma lihin xasan cali khayr isu qabiil ma lihin laakiin Soomaalida waa saddex waxyaalood marka qof aad taageeraysid ama lacag lagu siiyaa ama waxa lagu ballan qaaday maxaa la yiraahdaa jago ama isu qabiilaatiin intiiba hadii laga waayo waxa noqonaysa nin dawlad ku dhashay dawlad jecel ay shaqayso barkay shalay maxay ii weydiin weysay 4 sano aniga aan maxamed cabdullaahi farmaajo taageeray maskureer ahayn maya waan taageer dawladna aan rabay wixii ka dambeeyay Febraayo 2021 kina hamburger GT marka waxaan ku soo gabagabeynayaa idinkoo mahadsan economically internal security iyo arrimaha dibadda wadankan waa loo guuleystay hadda waxyaalo yar yar aan ogaanay jiray wasiirka arrimaha dibadda rada soo baxayo airport aan isku aragnay Serbia u socday Serbia u tagay waxa la isweydiinaa ku waxay leeyahay Serbia maxaa laga doonaa maxay noo sameeyay grainka oo Ukraine laga keeno la rabaa webiga Danube in laga soo saaro kadibna la soo gaarsiyo meelo kala duwan oo Turkiga la soo gaarsiyo loo keeno laakiin qofka oo Starbucks ka soo kaco oo shaqo la'aan oo dhaxan ku dhacday oo Toronto joogo ama joogo Ohio waxaas ma fahmi karo people are not very sophisticated waxay arkaan kaliya in adeerkooda ama qof ay taageeraan hadduu meesha joogin in adduunyada soo rogmatay walaalayaalow wadanka hore u socdaa waa qurux badan yahay waa iska dhibaataysan yahay bil ka hor suuqa waa ka duwan yahay hadda waa the first time aan cidna laga baqin dada magaaladan jooga Muqdisho ah Xasan Sheekh ay wax ka sheegayaan dhaliilayaan qof oo magaalada ay kaga baqayaan la bajaji raacayaan laakiin waqti waxa la soo maray hadda hadashay xataa maaragtay meel ka baxda lagu weyn jiray marka yaa la idinkaga sheekayna wadankii waa baaba'san dhulku galay waxba kama jiraan waa ka baxay waa maasantiin هذا هو ما سرتاي أستاذي سرو مركلته مولده وقعنت تاجر ما تبتعرض مولع ها وكسينا طاهر نوك هذه أستاذي هذا هو ما سنتاي ما الف عنا دكتور بنتي بدل نواتها وتي سؤال كان نور بينا كويد وكسينا طاهر موت كنا قال والكي قفل بوحدلا وجانس كوي لامشان waxaan ka hadlaynaa waxay tahay dhalinyaro badan ama isku jiro ustaadkana dhageysayo مولا عمود كقلبه أستاذ كنا دقيسايو سي wax badan ugu ogaadan xukuumadda hadda ustaadka bilow ilaa dhamaad buu kulligood ugu soo dhameeyay meel walbana waa istaagay hadda meel uu ka tagay ma aaminsan laakiin ustaadii hal mid momentum ka hadda socdo ah la dagaalanka qabaariijta oo ah in meel kale iyo luuqyo kale loo raadiyo iyadoo mucaaradnimo meeshaas laga raadiyo danta ugu weyn ee leeyihiin dadkan waxay tahay in systemka fail noqdo maanta meel lagu kala harama jirto dagaal qabaariid lagu kala jira amba qabaariidta tahay amba dawladda tahay sababtoo meel kale oo hadda aad u dhaxayso ma jirto mucaaradnimo meeshaas ka raadiyo hadda dhacdan adigoo qabaariid la jirta kamid tahay marka waxaa rabaa ustaad inaa ku weydiiyo momentumka hadda socdo ma horta meel mucaaradnimo looga luuqi iyo meel ay soo xadshaan ma hayaan ma way waxay waxaan dhahay waxay arkay ayagoo dhahayo qabiil hebel lagu weey waa qabiil asaan la yeelo baqdina ka qabnaa sana yeelana marka ustaadii soo dhow waa mahadsantahay horta idin sheegay traditionka Soomaalidu waxay tahay qabaa'ilaadka kumaan kun oo sano isdagaali jireen xoolo isku dagaali jireen dumar bay isku dagaali jireen beero isku dagaali jireen cabitaanka oo maartay beeraha wax walba xoolo isku dagaali jireen ceelal baa isku leeyin jiray marka waxyaalaha oo dara dadkan oo la yiri waa professor iyo balaayo ay rabeen in ay ummadda ka gadaan dhalinyarada oo intooda badan maankooda weli aanu kubcin waxbarashada weli sii wata inay ka dhaadhiciyaan waxa la yiri qolooyin oo maaragtay dad qabiil weli isku dagaali jiray laba laf oo abgaala waxay isku dagaalayaan cadalay eeriyadan qabiil weli isku dagaali jiray marka waxay yiraahdeen oh you see yayihiin dadka isdagaala xasan sheekh cidooda haye hubna iyaga soo lama haa soo ma oran anaga de hadii hub kala qabiil iyaga isku soo aaday this is the narrative ka ay rabaan ummadda inay ka dhaadhiciyaan ani kama baqataas ani waxaan ka baqaa
markay ingiriis soo qoraan markay barnaamijyo ay ka hadlaan oo qolooyinka xalna ay qaataan hadda waxaan ku dhihi karaa embargoga dhinac bay ka yihiin dadka intooda badan ma oga waana sii sheegay aniga waxaan dhahay dadkan damageka ay soo gaarsiinayaan true dadkan iga loobiga ay u yihiin ama ay la shaqeeyaan Soomaali dhibaatay u haysaa laba qabiil oo isdagaali kareen shalay oo macawisley aan joogin 100 sano ka hor isdagaali jireen marka dadkan waxay rabaan no Soomaali inay guulaysato no dawlad inay guulaysato why the difference between Soomaali iyo dawladda xataa ma yaqaanaan dadkan dhibkaysu waxay tahay position ayay ka rabeen systemkan oo hadda yimid way heli kari waayeen waxay dhaheen why me waanu hadda soo istaagaan dhahay maxaa wasiir hebel laga dhigi waayay idoo wasiir hebel wadankii Cabdinaasir waxbarasho xogaa la iskuma qiimeeyay xiliyadan waxa la isku qiimeeyaa maxaa la yiraahdaa reerka ka dhalatay anigana waxaan dhigay nasiib xumar reerkan ka dhashay waa Champions League oo meelay galaan ma bale adduunka meelay ka galaan ma waxa leeyahay qabiilada kala waxa iskale marka dadkaas narrative-kooda wuxuu ahaa inay position helaan oo way ismahadiyeen position heli waayeen marka waxay dhaheen the only way oo maaragtay dawladdan aan ku ridi karno aan ku dhibaateyn karno waa in international community aan kala dhicino inay dawlad xun ay tahay marka ma oga wadankii dawladdii ma ahan wadankii Soomaaliya because there's a difference between dawladda Soomaaliya iyo Soomaaliya as a country waayo xasan sheekh wadanka iskama leh 4 sano jooga waa ka tagay niman kala imaanay wadankii waay marka si oo iyaga ay dawladda ay u baabi'iyaan waxay isticmaalayaan every horrible thing in a book ku jira isticmaalayaan iyagoo ingiriis ku qorayo iyagoo le bahalkii macawisleyda waa ragtag waa ma aragtay qabiil hadhow ma aragtay oo soo jeesanayo oo dadku isku dagaal isa sameynay war dhageysta dadkan ma ahan dad ma aragtay aqliga iyo waxbarashada waa two different things ani maanta aqligu wuxuu isiinayaa dawladdeeda agteeda haddaan ku macluulo inaan taageero wax walba challenge ku imaado wadankayga aan taageero laakiin haddii maanta position aan isku dayay la ii diido xataa waxa way hamburger aan isku taagay haddaan raadinayo taas waaye ragnimada oo lagu sheegayo laakiin ma ahan qof inuu meesha tagay teeda kale ani haddii dawladdii hore mucaaradi lahaa ama dawladdii hore aan jeclaan lahaa maanta dawladda aan ka soo horjeedi lahaa from the day one waxba waxa dhihi lahayd aniga personal dance ka hadlo laakiin dawladdan aniga waqti aan siinaa benefit of the doubt aan siinaa let's say waxaan siinaa 1 sano 2 sano aan siinaa saas ay tahay xilligan bilii ugu raxtay waa la dhaliilay dawladda saxitaankeeda laakiin waxaan ku soo gabagabeynayaa mawlac waxaan ku soo gabagabeynayaa dadkan aad aragtaan haddii maanta saan u hadlayaan saddexdooda afartooda mid ka mid ah lay haddii la dhaho dawladda advisor madaxweynaha arrimaha qoritaanka iyo xalana uu noqon la dhaho waxoogaa lacag yar la siiyo marka dambe asoo buraanburay waad arkaysaa waa cheap waay raqiis waay qofkana markuu principle aanu lahayn uu raqiis yahay saas waay qofku wuxuusan isku naqanin dawladdii asaga uu la shaqeynayo hadday dhacdo dawlad kala imaato there's no difference ama in adeerka ha ahdo ama ka dambeey marka dadkan aniga I don't waste time kulligoodna by the way for the record blog ay saareen miyaan caay maya de waxaan soo dhigay beentooda iyo comparison kusoo sameeyey iyo sida international community u xiriiraan they don't like it kii ugu dambeeyay saar wuxuu ahaa hebelkii oo la dhahay professor hebel oo wuxuu yidhahay roblay afduub u dhahay